Hallow ku soo dhawaada tababarka dib u warshadaynta qashinka. Magacaygu waa Angelo. Aniga ayaa soo bandhigaya fasalka maanta. Waxaa jiri doona imtixaan dhammaadka fasalka oo lagu eegayo waxyaabaha aad ka baratay fasalka. Haddii aad halkan u timid kadib markii haamaha qashinka dib loo warshadeeyo lagaa qaaday kadib markii lagu arkay sumow, waa in aad halxiraalaha qaadataa si haamaha lagugu soo celiyo. Halxiraalaha waa mid lagu ogaanayo sida aad fasalka wax uga baratay. Waxa aan doonayaa in aan ku bilaabo dulmar guud oo ku saabsan dhammaan adeegyada waaxda fogeynta qashinka iyo dib u warshadaynta. Adeegeennu waa mid inta badan loo fidiyo dhismayaasha ka kooban 1 ilaa 4 guri. Adeega aan qabanno waxaa ka mid ah qashinka, dib u warshadaynta organiga, fogeynta alaabada waaweyn iyo waxyaabaha la fogeynayo. Waxaa kale oo aan bixinaa barnaamijka voucher-ka oo aad alaabo dheeraad ah ku keeni karto xarunteena lagu kala wareejiyo ee koonfurta. Haddii aad wax su'aala ka qabto adeega aan qabanno, fadlan soo wac khadka adeega macaamiisha ee 612-673-2917. Kan waxa aan ka bilaabaynaa hawshii aan dhammaanteen halkan u nimid dib u warshadaynta. 97% macaamiisheena waxa ay haystaan haamaha qashinka dib loo warshadeeyo si loo qiyaaso sida guusha barnaamijka dib u warshadaynta. Dabagal ku sameynaa heerka sumowga, taasoo aan ku ogaan karno heerkii dib u warshadaynta ee waxyaabaha aan dib loo warshadayn karin. Sanadkii 2023 waxa aan ogaanay in celcelis ahaan heerka sumowgu yahay 12%, kaasoo kor uga kacay 9.5% oo uu ahaa sanadkii 2022, laakiin weli waa mid aad uga hooseeya heerka sumowga qaranka oo ah 15%. Qashinka dib loo warshadeeyo waxaa loo diraa si loo kala saaro Eureka Recycling. Mar dambe ayaan ka hadli doonaa nidaamka kala saarista. Eureka ayaa u xilsaaran suuq geynta iyo iibinta waxyaabaha dib loo warshadeeyo. Wixii macaash ah ee ka soo baxa waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo qarashka laga qaado macaamiisha. Nidaamka waxbarashada waxaa ka mid ah shaqaalaha oo dusha ka eega haamaha qashinka ka hor inta aysan gaariga ku shubin. Haddii ay ku arkaan sumow, waxa ay ku dhejiyaan calaamad oo ay ku caddeeyaan nooca dhibaatadu tahay. Haddii lagu dhejiyo haantaada mar ka badan calaamadda, waxaa la soo saarayaa amar haanta qashinka dib loo warshadeeyo lagaga qaadayo. Si aad dib ugu soo ceshato haanta, waa in aad bixisaa $15 si markiiba dib lagugu soo celiyo, ama aad u sugtaa 3 bilood oo codsataa, ama aad qaadataa halxiraalaha dadka la weydiiyo dhammaadka fasalka. Hagaag, maxaa lagu gartaa waxyaabaha dib loo warshadeeyo? Waa in ay noqon karaan wax la soo ururin karo, waa in ay geli karaan haanta guriga kuu taal, waa in la kala saari karaa. Taasi waa sababta ugu weyn ee la tixgeliyo si aad waxyaabo badan ugu haysato in dib loo warshadayn karo. Aysan ahayn iyada oo aan si faahfaahsan uga hadli doono nidaamka kala saaridda. Iyo ugu dambeyn, waxaa loo baahan yahay in la suuq geeyo, taasoo loola jeedo in si dhaqaale looga helo oo qof kale u iibsado oo uu ka soo saaro waxyaabo cusub.
waxa aan markan ka hadlaynaa sida goobaha qashinka dib loo warshadeeyo loogu kala saaro dhowr waxyaabood, waayo waxa aan aaminsanahay sida uu nidaamkan u shaqeeyo in ay tahay mid fudud oo lagu xasuusan karo in waxyaabaha qaarkood dib loo warshadeyn karo iyo in kale. Marka alaabadu soo gaaraan goobta lagu kala saaro, waxaa lagu daadiyaa dhulka kaasoo lagu magacaabo tip flop. Waxaa kadib loo gudbiyaa suun ay ku dul cararaan oo alaabadu ay diyaariya in la kala saaro. Waa tallaabada ugu horeysa ee ka horeysa kala saaritaanka. Qaybtan waxaa gacanta looga reebaa waxyaabaha la doonayo in laga saaro kan waxaa lagu magacaabaa kala shaandhaynta dadban. Waxaa laga reebaa alaabada aan dib loo warshadeyn karin. Waxa ay xoogga saaraan waxyaabaha dhaawaca u geysan kara qalabka. Inta badan waa bacaha. Waxaa muhiim ah in aad ogaataan in shaqaalaha kala saaraya la faray in ay ka saaraan wax kasta oo bac ku duuban. Ma furayaan bacda, taasoo waxaa loo yeelay ammaanka shaqaalaha, waayo ma jirto hab ay ku ogaan karaan in waxyaabaha bacda ku jira ay leeyihiin dhibaatooyin caafimaad. Sidaa darteed, bacda oo dhan qashinka ayaa lagu daraa. Taas weeye sababta ay muhiim u tahay in aadan bac ku xirin loo warshadeeyo oo aad ku dhex daadisaa haanta guriga. Waxyaabaha kale ee laga saaro shaandhaynta ka hor waxaa ka mid ah biraha la tuuro sida suxuunta iyo daawadaha iyo biraha dharka la surto, waxyaabaha elektarooniga ah iyo batariyada, haamaha gaaska iyo waxyaabaha aad u ballaaran oo aan dhex mari karin qalabka kala saaraya. Nasiib darro, dhammaan waxyaabaha sumowga dhaliya lama qabto kala saaridda ka hor. Bacaha balaastigga ka samaysan iyo filimada waa waxyaabaha ugu badan ee soo raaca. Kadib marka ay soo dhaafaan qolka ka horeeya kala saaridda, waxaa loo gudbiyaa baaritaan dheeraad ah. Halkan waxaa looga gudbaa marxaladda alaabada horey loogu kala saari jiray 2 weji oo iminka loogu kala saaro 3. Sidaa darteed, warqadaha iyo baakadaha ka yimaada haanta. Warqadaha xagga hore ee dhalada ayaa soo maraan, halka kartoonadana ay hoos ugu dhacaan meelaha bannaan. Sawirka bidixda ayaad ku arkaysaan sida ay u eg tahay marka ay nadiifka yihiin. Sawirka midigtana waxa uu muujinayaa sida ay u eg yihiin marka bac lagu daboolo iyo filimada. Marka bac lagu xiro ama ay caag ku dhex jiraan, kama dhex bixi karaan halka loogu talagalay. Waxa aad sawirka ka aragtaan 2 shaqaale ah oo bacda jaraya. Goob kasta oo qashinka lagu kala saaro ee degmada waa in shaqada la joojiyaa ugu yaraan 2 jeer maalintii si tan loo qabto. Ma aha in qarash badan ku baxayo shaqada oo la joojiyo, laakiin waa mid khatar ku ah shaqaalaha oo makiinada u gurguurta oo xagga hoose ka gala si ay bacda u jaraan. Kadib ayaa alaabadu sii raacaan suunka, halkaas oo biraha ay ka reebaan birlab, bacahana ay kala saaraan kombiyuutarada iyo hawada. Birlabta ayaa suunka ka soo qabata biraha iyada oo la isticmaalayo birlab xoog badan, halka waxyaabaha ka samaysan aluminiyumka birlabtu qaban karin. Waxaa lagu soocaa wax la yiraahdo eddy current. Waxa ay u shaqaysaa hab liddi ku ah birlabta, iyada oo la isticmaalayo birlab koronto ah oo laga soo daayo hawada waxyaabaha aluminiyumka ka samaysan oo u dhexeeya derbi kala saara waxyaabaha kale. Sawirka midigta, balaastiga waxaa lagu kala saaraa iyaga oo isticmaalaya fallaaro ilays ah. Sawirka midigta,
halka ay makiinadu ku soo dayso fallaaro ilays ah oo la fiiriyo waxyaabaha ka soo noqda, taasoo lagu ogaado nooca ay yihiin iyo halka ay ka marayaan suunka. Haddii ay yihiin waxyaabaha uu ilaysku uu doonayo inuu qabto, tusaale ahaan caagga nambarka 1, waxaa lagu sii daayaa hawo bacdan ka tuurta derbiga kala saara ee u dhexeeya inta kale, kaasoo la mid ah sida uu u shaqeeyo eddy current. Dadka inta badan waxa ayna weydiiyaan, ma waxaa la doonayaa in waxyaabaha dib loo warshadeeyo noqdaan kuwo nadiif ah? Jawaabtu waa annaga ayaa nadiifina waxyaabaha dib loo warshadeeyo, sida loo nadiifiyo haamaha guryaha iyo dadka gacanta ku kala saaraya. Hase yeeshee, haddii waxyaabaha dib loo warshadeeyo aad u wasakh u yihiin, waxay ku culus yihiin in hawada lagu sii daayo ay qaadi karto si ay xayndaabka dhinaca kale uga tuurto oo si sax ah loo kala saaro. Sidaa darteed, biyo lagu rusheeyo wax dhib ah ma laha si loo yareeyo urta ka imaanaysa, marba haddii ay yihiin kuwo maran. Waxaa loo kala saarayaa si sax ah oo dib loo warshadaynayaa. Markan oo aad si wanaagsan u fahamtay sida alaabada loo kala saaro, aan ka hadalno nooc kasta oo alaabada ka mid ah. Sharciga guud ee warqadaha waa haddii ay cunto soo gaartay, dib looma warshadayn karo. Xusuusnow, si warqadaha si sax ah loogu kala saaro, shaashadda waa inuu fidsan yahay. Waa in aad baakadaha ka dhigtaan mid siman. Warqadaha aan dib loo warshadayn karin waxaa ka mid ah warqadaha wax lagu duubo, warqadaha suuliga, warqadaha aftirtirashada, iyo wax walba oo talaajad soo mara ama cunto ay gaarto. Inkasta oo baakaduhu yihiin qayb warqadaha ka mid ah, waxa aan doonaynaa in loo kala saaro sida bacaha alaabada lagu keeno. Taas waxaa ugu wacan waxa ay doonayaan in la mariyo nidaam gaar ah, maadaama dusha laga mariyo kiimikooyinka celisa, iyo warqadaha xafiisyada lagu isticmaalo, maadaama siyaabo kala duwan loo suuq geeyo. Taasi waxa ay ka dhigan tahay inaysan qasab kugu ahayn in aad fidiso baakadaha ku daa sida alaabada loogu keeno ee qaabka 3D-ga si marka dambe si sax ah loogu kala saaro. Sidoo kale waxa ah baakadaha lagu keeno gascadaha, fadlan ku daa sida lagu keenay. Noocyada biraha ee la oggol yahay waa biraha iyo aluminiyamka. Xaruntu waxa ay dib u warshadayn kartaa oo keliya wax yar oo ka mid ah weelasha cuntada iyo cabitaanka. Fadlan biraha la tuurayo ha raacin qashinka dib loo warshadaynayo ee guriga, waayo waxa ay khatar ku yihiin dadka iyo qalabka xarunta kala saaridda. Aluminiyamka cuntada lagu duubo waa la oggol yahay haddii uu yahay nadiif oo la isku kuusay ilaa dhumuc dhan 3 inch oo wareeg ah oo gacantaada le'eg. Bacaha dib loo warshadayn karo waa lambarada 1, 2, 3 ama 5. Kuwa waa kuwa inta badan laga sameeyo dhalooyinka cabitaanka, jikada, suuliga iyo caagga saabuunta dharka lagu dhaqo. Waxa aad fiirin kartaa qaybta hoose ee haanta calaamadda fallaaraha leh ee ku yaal ee lambarada dhexda kaga yaalaan. Fadlan waa in aadan ku ridin wax bac ah, filim ah, suxuunta isbuunyada ka samaysan, iyo wax kasta oo keeni kara in lagu sumoobo. Inta badan waxaa ku dheggan calaamad muujinaysa digniin keeni kara sumow ama olol oo dhalin kara
olol dhalin kara. Sharci aad xusuusan kartaa waa in wax kasta in wixii aan loogu talagelin in bulaacadaha guriga aan la raacin karin aysan noqon karin kuwo dib loo warshadeyn karo. Mar haddii ay leeyihiin fallaaraha waxyaabaha alaabada lagu keeno ee ka samaysan balastiga, macnaheedu ma aha in ay yihiin kuwo dib loo warshadeyn karo. Calaamadaha ku qoran lambarada 1, 2 ama 5 ayaa caddayn kara in uu yahay mid dib loo warshadeyn karo. Si fudud oo lagu xusuusan karo lambarada waa adiga oo I love you ku qoro luqadaha faraha laga hadlo American Sign Language iyo adiga oo ka soo tirinaya suulkaaga 1, 2 iyo farta 5aad. Bacaha madow arrintaasi waa laga reebayaa halkan. Xusuusnow in bacaha lagu kala saarayo oo la isticmaalayo fallaaraha shucaaca. Fallaaraha shucaaca ah ma arki karaan bacda madow waayo waxa ay liqdaa dhammaan ilayska iyada oo raacda suunka kana dhigta in uusan marna arkin oo kale. Sidaa darteed, fadlan ha ku dhaafin haanta qashinka dib loo warshadeeyo. Waxyaabaha ugu muhiimsan in la xasuusto waa in dhalooyinku noqdaan kuwo cuntada ama cabitaanka, taasoo loola jeedo dhalooyinka uu ka dhammaado shumaca la shito, dhalooyinka cabitaanka ee jajaban, miraayadaha adag, dhoobada iyo wixii la mida, waayo waxaa taas ugu wacan iyada oo heerka milanka ay ku kala duwan yihiin dhalooyinka cuntada, taasoo keeni karta in aysan ugu habboonayn in waxyaabo cusub laga sameeyo. Dhalooyinka Mason waa laga reebay arrintan waayo waxaa loo tixgeliyaa in ay la mid yihiin dhalooyinka cuntada lagu keeno. Dhalooyinka waxaa lagu burburiyaa oo cadcad yaryar looga dhigaa goobta lagu kala saaro. Sidaa darteed, cad kasta oo dhalo ah oo xajmigiisu ka yaryahay 3 inji waxa uu ku dhacayaa qalabka lagu kala saaro wuxuuna u dambeynayaa in la burburiyo. Dhalooyinka waxaa loo diraa xarun kale oo lagu sii kala saaro ee St. Paul, kaasoo oo loo kala saaro midabka iyo xajmiga. Wixii aan dhalo ahaynna qashinka lagu daro. Waxyaabaha yaryar ee inta badan soo raaca dhalooyinka waxaa ka mid ah batariyada, daboolka iyo warqadaha la shiido. Wax kasta oo aad haanta ku riddo oo ka yar 3 inji waxa uu ugu dambeyntii noqdaa mid la burburiyo oo qashinka la raaciyo. Si ay dhalooyinka u noqdaan kuwo nadiif ah waxaan ku dhaafnaa daboolka. Inkasta oo dhalooyinka caagga ka samaysan ay yihiin nooc kale oo caag ah, dhalooyinka inta badan waa number 1 halka daboolkooduna yahay number 5, laakiin weli dib ayaa loo warshadeyn karaa. Taas waxaa ugu wacan tallaabada ugu horreysa waa isu ururinta iyo dhaqitaanka. Xilligaas oo labada nooc ee caagga lagu kala saaro iyada oo daboolku samaynayo dhalada caagga ka samaysan ay hoos u degaan, taasoo fududeynaysa in labada nooc ee caagga ah la kala saaro. Daboolka birta ka samaysan waxa aad gelin kartaa gudaha gasaca birta ka samaysan oo gudihiisa ku dhaafi kartaa. Taas waxaa lagu xaqiijinayaa in daboolka ay birlabtu qabato oo la raaciyo gasacadaha dib loo warshadaynayo. Marka wax walba loo kala saaro darajooyin, waxaa la isku ururiyaa oo loo dirayaa in la qaadi karo oo la suuq geyn karo si looga soo saaro alaab cusub. Waxyaabahaas inta badan meel fog looma qaado. 95% waxyaabaha dib loo warshadeeyo waxaa lagu dhaafaa
Midwest iyada oo 99 aysan ka bixin Waqooyiga Ameerika. Waxaa laga yaabaa in aad wararka qaranka aad ka maqasho sheekooyin ku saabsan waxyaabaha aan dib loo warshadayn karin. Laakiin waxaa laga yaabaa waxyaabaha xeebaha ka dhacaya in aysan ina qusayn, waayo waa mid deegaanka ay ka dhaceen qusaysa. Waxa ay MCPA ku qiyaastay in qashinka dib loo warshadeeyo abuuraan 77,000 oo shaqo ee Minnesota keliya. Sidaa darteed, waa maxay waxyaabaha laga sameeyo qashinka dib loo warshadeeyo hagaag? 1. Dhalooyinka iyo aluminiyumka dib ayaa loo warshadeeyaa dhowr jeer. Sidaa darteed, dhalooyinka dib ayaa loo warshadayn karaa oo loogu celin karaa waxyaabo dhalo ka samaysan. Sidoo kale, gasacadaha ka samaysan aluminiyumka. Xaqiiqo dhab ah, gasacadaha aluminiyumka waxaa dib loo isticmaalaa 60 maalmood laga bilaabo marka aad ku riddo haanta qashinka, iyada oo ay qaadato tamar 5% ah in dib loogu warshadeeyo oo mid cusub laga soo saaro. 2. Warqadaha waxaa dib loogu warshadeeyaa ilaa 7 jeer. Taas waxaa ugu wacan dhererka iyo qaabnida waxyaabaha laga sameeyo oo mar kasta dib loo warshadeeyo. Marka ay warqaduhu gaarto halka ugu dambeysa, waxaa laga sameeyaa baakadaha ukunta lagu qaado oo qaabkooda laga diyaariyo. 3. Iyada oo farsamada casriga ah ay horumar ku tallaabsanayso sidii loo warshadayn lahaa dhalooyinka caagga ka samaysan, caagagga intooda badan dib looma soo saari karo alaabo dhigana oo inta badan hoos ayaa loo dhigaa ama laga soo saaro waxyaabo kale. Tusaale, dhalooyinka caagga ah waxaa laga soo saaraa waxyaabo laga sameeyo dharka iyo gogosha dhulka. Iska ilaali waxyaabaha aan si wanaagsan loo xirxirin. Ma jiraan sharciyo iminka dhaqangal ah oo ku salaysan habka alaabada baakadaha loogu rido. Sidaa darteed, ha rumaysan wax walba oo ku dul qoran baakadaha marka laga hadlayo dib u warshadaynta. Xusuusnow, haddii aad ka shakiso, qashinka raaci. Iska ilaali waxyaabaha aan si wanaagsan loo xirxirin. Ma jiraan sharciyo iminka dhaqangal ah oo ku salaysan habka alaabada baakadaha loogu rido. Sidaa darteed, ha rumaysan wax walba oo ku dul qoran baakadaha marka laga hadlayo dib u warshadaynta. Xusuusnow, haddii aad ka shakiso, qashinka raaci. Sida ugu saxsan ee alaabadaas dib loogu warshadayn karo waa adiga oo fudayd ka dhiga. Raac waxyaabaha ku xusan tilmaamaha dib u warshadaynta oo xusuusnow qodobada aas-aaska u ah waxyaabaha lagu keeno cuntada, cabitaanka, suuliga iyo saabuunta dharka lagu dhaqo. Caagga 1, 2 iyo 5 kuma jiraan bacaha madow. Warqadaha loogu talagalay in cuntada lagu isticmaalo. Dhammaan baakadaha lagu keeno alaabada ee xaanshida ka samaysan. Ku dhaaf qaabka ay ku yimaadeen 3D si loo kala saaro. Marna bac ha raacin haanta qashinka dib loo warshadeeyo iyo wax ka yar 3 inji ama ka weyn meel qaada 3 gallon. Way fududahay, miyaysan ahayn? Haddii aad weligaa shakiso, qashinka raaci. Haddii aad doonayn in aad noqoto qof aad ugu wanaagsan dib u warshadaynta, kadib waad ogaan kartaa. Internetka ayaa saaxiib kula ah marka aad doonayso in aad hesho macluumaadka qashinka dib loo warshadeeyo. Waxa aad ka helaysaa tilmaamo aad ka raadin karto alaabada kala duwan. Markii aad doonto, waad na soo wici kartaa ama email noogu soo diri kartaa su'aalo aad qabto. Ama waxa aad ku soo biiri kartaa kooxda Facebook. Waxaa xubno ka ah ilaa 2,000 oo xubnood.
iyada oo dadku kusoo bandhigaan waxyaabaha dib loo warshadeeyo iyo su'aalaha la xiriira qashinka la fogeeyo maalin kasta oo looga jawaabo. Halkaas waxaa ku eg fasalka. Haddii aad fasalka uga qayb qaadatay si aad dib ugu soo ceshato haanta, waa in aad halxiraalaha ka qayb qaadataa. Taas weeye sida aan ku ogaan karno in aad fasalka ka qayb gashay. Waa in aad heshaa ugu yaraan 14 dhibcood ee 20 dhibcood ee halxiraalaha ah. Waxa aad ku ceshan kartaa halxiraalaha intii aad doonto. Marka aad dhammayso, waxaa 3 maalmood gudahood lagugu soo dirayaa email lagugu caddaynayo in aad ku gudubtay, waxaana sugaysaa in haanta laguu soo celiyo. Haddii aadan fasalka u qaadan si aad haanta u soo ceshato oo aad u doonayso in aad ka qayb qaadato halxiraalaha, wax dhib ah kuma jirto. Waxa aad kaamirada sawir kaga qaadi kartaa muuqaal QR code oo guji mareegta link si aad halxiraalaha uga qayb qaadato. Waad ku mahadsan tihiin in aad ka qayb qaadataan tababarka dib u warshadaynta qashinka oo fadlan nala soo xiriir wixii su'aalo ah. Mahadsanid. Nabadgelyo.